السلام عليكم سلوى هدي عusub tahay magacayga waa Dr. Jabir maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shan qodob oo haddii qofka iska ilaalin waayo keeni kara in hormoonka ragnimada ama testosteronka uu yaraado haddaba shantan shay aan sheegi doono haddii aad iska ilaalin weyso waxay keeni karaan in hormoonka ragnimadaada uu dhulka galo haddii aad iska ilaalisidna waa uu ku badbaadi doonaa qodobka koowaad muxuu yahay in abadsata waxyaabaha ay ku badan yihiin sokorta baaritaano la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday haddii qofka ragga uu badsado waxyaabaha sokorta ay ku badan yihiin sida chocolateska sidoo kale waxyaabahan cabitaanada ay ku badan yihiin sokorta waxay keeni kartaa inuu ka saameeyo hormoonka testosteronka oo keeni karo in uu yaraado hormoonka testosteronka qodobka labaad wuxuu yahay stresska badan haddii qofka stresskiisa uu aad u bato asiga naftirkiisa wuxuu saameyn karaa wax la yiraahdo cortisol waxaa jira hormoon la yiraahdo cortisol haddii hormoonkaas cortisolka batan wuxuu keeni karaa in uu testosteronka yaraado haddaba waa inaad iska ilaalisaa stresska badan ama in muddo ay soo laabanayo waa inaad iska yareysaa qodobka saddexaad wuxuu yahay hurdadaada oo yaraata sida normally qofka waxaa laga rabaa inuu hurdo 6 saacadood ilaa 8 saacadood inta u dhaxayso laakiin haddii qofka habeenkii uu jiifto wax ka yar 6 saacadood ayda naftirkeeda waxay keeni kartaa in hormoonka testosteronka uu ka saameeyo kadibna uu ku imaado in hormoonka uu hoos u dhaco keeni karana inuu ka saameeyo ragnimadiisa inuu ka saameeyo qodobka shanaad oo ugu muhiimsan asigana wuxuu yahay in qofka uu iska ilaaliyo inuu isticmaalo mobilka waliba qaasatan mobilada aadka u kululaado waxaa la ogaaday haddii qofku isticmaalo mobilada kuleelka leh uu jeebka gashto inay keeni karaan ama inay soo deyn karaan waxyaabo la yiraahdo radiation ama shucaac inay soo deyn karaan shucaacaas ay soo deynayaan marka waxay saameyn ku yeelan karaan ama ay dhibaato gaarsiin karaan xiniyaha ay dhibaato gaarsiin karaan xiniyahana waa meesha shahwada lagu suubiyo marka haddii qofka markuu iska ilaalin waayo waxyaabaha kulul mobilka kala kululaaday inaad jeebka gashatid waxay keeni kartaa in uu shahwada ka saameeyo ugu dambeynna testosteronka uu saameyn ku yeesho ay keeni kartaa haddaba waxaan kuu digayaa marka qodobadan aan soo sheegnay inaad iska ilaalisid si xiniyahaaga iyo shahwadaadaba ay kugu badbaadaan thank you